inkastoo nin geesiya rag u geed adeeg yahay haddaan garabka lala qaban guri oodi maayo. xasan sheekh maxamuud nin ka tabar daran male wuxuu isku muujiyaa inuu tabar badan yahay wuxuu ku tabar daran yahay shacabka Soomaaliyeed ma hayso macna kuma dhaxle yaa arkay muxuu ahaay abatacaasho oo maxaan ku qorba suuka wadato dagaalamaysi arkay maamadu waa arkaysiin shucuurta ka adkaatay runtii ay inta ka timid dalkan dulmiga ka jira wax yar oo kamid ah wariya waa waalantahay waxaan soo shaqeynaa ma gabadh waanu garab taagan warniyo والله حبس أولي أقواري نخبضي سياسات أما إليتكي سياسات أما هروينتي سياسات ناشيس لماها كوي أساق حلكة كانين تاجروا ما هيش ساكو ذا يلا كرنا individuals وذا قايلنا يا شخصيات مدول بحاجة تاجية هي بع أولياء ده كان حق ولا جوجوا مريكان أيمي أود كوين جري شلواتي أنت دعدي شلواتي ساس إهد لا يا دعدي إثيوبيا تيمت أود كوين جري وجوجوا ورئيو كان شلوا سوق جد بيه بريم محاصة مينا يلا هذا الوحاص هذا أدير كيس وماشى كأنك ديكان إنه صدق على صوغل ما أنت دولة حد الشيء أنت زوجتي ما يلقى راح أكون عاد ما دي واكن وانولي عقول ما يا مريكان هبل واتو سان يالي كاس واتو سيدس يالي صفر ماجو يعني وعبسي قليل أنا حتى والد رجعني كان حقه شال الدمية أنتم وحس وحب ما سميان جيسيان لغدا هلا صباحه هذيك ناقي يرب جوكتو عدانا كهلا كذا بعي شاكداس Sorry, my language is not very good, but I would ask help. Our country faces a critical constitutional crisis where the president's mandate expires. Considering both the executive and legislature will have lost the legitimacy to govern, the only solution to avert this looming crisis is therefore an immediate political solution. USCS فرح بدناي SNM SSDF MDS whatever ما قاعد دون تعاطو والصلح ومانيفستو ومانكوبي ومرتد سفوين adjectives نوعاس يعني دين سميسن وريا بح بلا شحيتها تاي مني هنا بحده اسكديد dalku waa kala go'aya nin walba tuuladu ku yimid u noqonaya intuu ka baxaya waxa soo dhan fikirka aad ka hadlaysid inaad aamusida lagu dalay ha aqbalin ha yeelin mudan yaalay marwooyi nabad waa adeer wax kala oran maaye aan faataxada u marno ninkaas waa dhumay aan faataxada u marno inuu quraan caaw faataxada aan qabato oo dadka tartiib uga tago ha ku habsaamina waa naga yaabsaday qoraa ka odag waa naga yaabsaday aabbo xooga inuu soo waasho u maleynaa cabdi inuu halkan soo istaago oo faataxa la marayna aniga waxaan aaminsanahay wax ilaahay xaggiisa ka yimid waa cabdi markii ugu yarta aniga 20 sano aqaan weligaa soo faataxa maraa ma adeer jimcaale oo 9 jir ah oo qorag beeka ama watane yaa adkay asna warragii qoryaha haysta maanta faataxay maraayaan madaxweynuhu raali ahaa ها واي كاسا aniga maxaan ku iraahdaa qoryaha naga dhigtay shala anaga dooranay meel baa inta fariistaa ayaan dhaway gacanta kor u taag waxaan ilaahu rabbi oo iga cafi ilaahu iga cafi gacantii aan ku doortay yani anigii baa shakiyay waxaan arkay dambiile weyn inaan ahay yaa watay inta soo dhan markii ma ogeyn aniga go'aan ayagu ay gaareen ma ahayn duruuftii jirtay awgeed wajigu subag noo martay dawladda Soomaaliya oo madaxweynuhu ugu horeeyo wuxuu dhacayaa 15 May 2027 waxaan islaahay meesha uu ku dhimanayo taagan yahay waraa beenaala taa waxa kala tagay mana naga tagaan leena alxamdulillah ciidana noo joogo ku filan inay amniga sugaan faataxa bal faataxada Allah قماد عيلي سيدا مايلك ودلاني